waad aragtaana oo maleena Soomaalida dhibaatada ku haysto South Africa hadda yarkaan dukaankiisa ayaa wax laga soo dafay ciidan ayuu u wacay waxa kaamirada ka soo duubay oo fiidiyowga la daba taagan waa wadani u dhashay wadankan South Africa waxa uu taagan yahay Cabdiweli waa ku jeedaa ciidan baad aad lacag soo siisay annaka hadda ciidan noo soo wadato mooho waad ka shalay doontaa ciidanka xataa ka cabsamayaan waxa ay taagan yihiin ciidankan aad soo laaluushtay markaad laaluushka siinaysanay anaka dukaanka hortiisa joognay waana ku jeednay haata ma waxa bilowday in aad dhalinyarada xaafadda ciidan u soo wacato oo aad soo dacweyso way inoo taala hal brad meeshan ayaa ku sii shaqeysan doontaa ciidanku meesha taagana loo hanjaba ciidankuna sidiisa dhanba qofkii loo wacay kaliya ayaa taageeraya mahane markaas qofka gadaal ka qeylinayaan kuma mashquulaanba taargetkooga kaliya ayay ku mashquulaan marka dhibaatada wadankan ka jirto waa iska noocan dadka wadankan hadii aad ku dacweyso ciidan ku dacweyso barada waxa waay dhibkay shalay ku geysteen dhibka si weyn ayay ku geysanayaan midka adiga dacweysay oo la xiray kaas xabsi oo bajiraaba asxaabo leeyahay tiimkiisa ayaa biri adiga wax ku yeeleenayo marka adigoo dantaada fiirsanayo sida aad ugu xiiladeysan karto inaad ugu xiiladeysato ayaa fiican wadankan dagaal ha ku galin barada hadii aad joogto sida aad marxaladaasi dhibaatadaas aad ugu gudbi karto ugu gudub shaqo ayaa u timid wadankan xoogaa dhalaaq qadaadicina ka shaqeysata u timid kistaada yar qaabka ugu shaqeysan lahayd naftadaadana aad u badbaadsan lahayd ku dadaal